Alexander Arnold oo laba shuruudood ku xiray qandaraaska cusub ee Liverpool iyo Real Madrid oo ku fikirayso in 20.7 milyan oo ganiga ay kula soo wareegto. Haddaba waa maxay shuruudaha cusub ee Alexander Arnold uu hordhigay kooxda kubadda cagta Liverpool? Muuqaalkan ayaa kugu wadaagi doona ay soo dhaw daawade, balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad like saarto muuqaalka si share kareyso, sidoo kale aad ku soo biirto bogeyga Saamil Cadaala. Haddii aad igala socoto bartay TikTok, waxaan ka codsanayaa inaad dirista jir ay daawato calaamadda copy linki. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Aniguna waxaan ahay Saamil Cadaala. hagaag daafaca kooxda Liverpool Alexander Arnold ayaa lagu soo waramayaa inuu Reds laba dalab hordhigay haddii uu doonayo inuu iska diido Real Madrid oo heshiis cusub u saxiixo. Kooxda haysata horyaalka Spain ayaa la sheegay inay u dhaqaaqday saxiixa daafaca midig ee heerka caalamiga ee England habeenkii sanadka cusub. Los Blancos ayaa la rumaysan yahay inay miisaamayso qaabkii labaad ee Alexander Arnold, kaas oo hadda xor u ah inuu heshiis hordhaca ula galo kooxo ajnabi ah kadib markii uu galay 6 bilood ee ugu dambeysay qandaraaskiisa. Liverpool ayaa ku adkeysanaysa in kabtan ku-xigeen kooda uusan ka degi doonin kooxda bishan. Kooxduna waxa ay wali wada hadalo ay kula jirtaa wakiilada Alexander Arnold ka oo ku saabsan heshiis kordhinta, laakiin wali ma muuqato wax horumar ah oo arrinka laga gaaray. Hubanti la'aanta mustaqbalka Alexander Arnold ayaa aad u korortay maalmihii ugu dambeeyay, iyadoo wararka ka imaanaya gudaha Spain ay xaqiijinayaan in Real Madrid ay ku kalsoon tahay inay heli doonto ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka England haddii ay ahaan lahayd qiimo dhimis hadda ah iyo haddii ay ahaan lahayd inay qaadato xagaaga soo socda. Iyadoo ay sii socdaan wada sheekaysiga Liverpool iyo saaxiibada Alexander Arnold, Talksport ayaa sheegtay in daafaca uu kooxdiisu u soo saaray laba shuruudood oo muhiim ah oo ay tahay in la buuxiyo haddii uu qalinka ku tuugayo heshiis cusub. Midka koowaad ayaa ah in heshiis kasta oo cusub uu yahay ugu yaraan 3 sano, taasoo sii dheeraynaysa joogitaanka Alexander Arnold ee Anfield ilaa xagaaga 2028. waqtigaas waxa uu ku dhowaan doonaa dhalashadiisa 30aad. Alexander Arnold ayaa sidoo kale la filayaa inuu doonayo damaanad qaad ah in uu ugu dambeyntii dhaxli doono calaamadda kabtanimo ee Anfield, taasoo dhici karta waqti hore ka hor haddii uusan Virgil van Dijk saxiixin shuruudo cusub. Kadib markii ay isla markiiba diiday Liverpool dalabkii Real ee habeenkii sanadka cusub, Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay ku bixiso lacagtan 25 milyan oo u dhiganta 20.7 milyan si ay Alexander Arnold u keento Bernabeu toddobaadyada soo socda, sida laga soo xigtay Marca oo ka soo baxday gudaha Spain. 26 sano jirkan ayaa sidoo kale filan kara in loo kordhiyo mushaaraadkiisa oo gaaraya ilaa 400,000 toddobaadkii, wuxuuna xiriir aad u dhow ula leeyahay xiddig Real Madrid iyo saaxiibkiisa England Jude Bellingham. Dhammaan 3 ciyaartooy ee Salah, Van Dijk iyo Alexander Arnold oo qandaraaskoodu uu dhacayo markii uu dhamaaday xilli ciyaareedkan ayaa la filayaa inay ku soo bilowdaan kulanka Liverpool axad soo socda ay la ciyaari doonto Manchester United, kulan qayb ka ah horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, iyadoo kooxda Arne Slot ay rajeynayso inay sii xajisato hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League oo ay haatan hogaaminayso. Ugu dambeyn, sidee u aragtaa labada shuruudood ee hordhigay Alexander Arnold kooxdiisa Liverpool si uu heshiis cusub ugu saxiixo? Ma laga yaabaa laacibkan inuu ka tago Liverpool oo uu ku biiro Real Madrid? Aragtida waxay tahay qaybta hoose ee comment-iga ku reeb. Mahadsanid.